imanaya murashaxiintii shalay kan joogay uunba maantana kan jooga siyaasigii shalay ninkan kale ka garab hadlayay uunba maantana mucaaradka ka garab hadlaya kii shalay muxaafidka ahaa uunba maantana mucaarida wax alle wax isbedelay ma jiraan warahmatullaahi wabarakaatu channelka daawanaysa waa xulka media kusoo dhawaada dabcan arrimaha siyaasadda waynu ka hadli karnaa maxaa diiday ugu dambeeyay waxa social media aad u qabsaday arrimaha siyaasadda dabcan taasi oo nolosheena ka mid noqotay oo qof kastaaba sida uu arko ama dareenkiisa uu cabiro xisbiyada Somaliland ka tartamaya waa xisbiyo faac weyn macnaha waa xisbiyo muddo dheer ina soo hor joogay 20 sano u dambeeyay xisbiga wadani iyo xisbiga kulmiye iyo xisbiga ucid wadaniyaan oranine waa ayna soo hor joogeen muddo badan run ahaantii waxa aragti siyaasadeed ah oo aad ku kala doorato saddexdaas xisbi run ahaantii ma jirto oo aan ahayn reer hebel saddexda xisbi mid soo bandhigay barnaamij aad ku raacdaa ma jiro kaliya ilaa imiga magaca iyo magaca reerkiisa oo kaliya baynu ku difaacaynaa hadaynu dhalinyaranahay kuma difaacayno xisbigan muxuu xisbigan kale kaga wanaagsan yahay caalamka marka ay xisbiyadu tartamayaan mid walba madiisa wala yaqaana iyo wuxuu ku wanaagsan yahay iyo wuxuu kan kale kaga duwan yahay deedana qofku wuxuu isbarbardhig ku sameeyaa labadaas xisbi ama saddexdaas xisbi kadib wuxuu kala doortaa markaa kii ay faa'iido ugu jirto isaga iyo dalka iyo dadkaba laakiin se inaga waxaad moodaa in haddii xisbiga ninka murashaxa ka ah uu yahay reerkaaga inaanad uga baahnayn ba inuu soo bandhigo wuxuu qaban lahaa ama waxaad ku dooran lahayd ama waxaad ku raaci lahayd tusaale ahaan xisbiga ucid wuxuuna hor joogaa muddo 20 sano ka siman waan xasuustaa waqtigii doorashadii 2013 anigoo intan ka yar oo doonayay inaan codeeyo ayaa waxaan soo galay safkii sanduuqa loo gelayay waxay igu qaadatay muddo dheer inaan safkaa ku jiro sidii kolba askarigu iiga saarayay ee ay wiilaha wad yar tahay ayaa waxay igu gaadhay 6dii maqribnimo inaan soo gaadho alxaasibana layga soo saaray mana codeyn imiga oo ay 20 sano ka soo wareegtay isla xisbigii iyo isla murashaxii bay hortaagan hadalkii uu shalay lahaa maantana uu leeyahay wax fikra oo kii ka duwan ma jiro xisbigu waa xisbigii murashaxu waa murashaxii xagga odayaasha dhaqanka run ahaantii xagga siyaasadda saameyn badan bay ku leeyihiin oo waxaad moodaaba in xilliyada marka ay sheekadu murugto in iyaga isugu soo biyashubato run ahaantii dalka faa'iidana waa u leeyihiin faa'iido darana waa u leeyihiin oo iyagii lagama maarmo oo marka ay xaaladuhu murugaan ama ay jiq noqdaan salaadiin iyo odayaal bay dabada gelisaa kuwaasi oo marka dambe ay gorfeeyaan soo saaran natiijo ay wax ku sii wada socon karaan haddana laakiin ma jiro sharci lagaga maarmi karayo oo inta odaygii halkaas lagaga tago sharcigii loo hoggaansamayo ama sharci lagu kala baxayo marka taas waxay keenaysaa inuu qof walba odayga ilaashado berigan dambe waxaad moodaysaaba waxyaalihii laga xishoon jiray ama ma garanaysaa waxyaalihii dee laga xishoon jiray sida qabyaaladda oo kale odayaashu xagga qabyaaladda oo kale waxay iska ilaalin jireen in odaygaasi reer lagu shaambadeeyo oo la yidhaahdo reer hebel buu afka soo mariyey oo si kale oo maldahan bay u hadli jireen laakiin se imiga waxaad moodaaba odaygii hadlayaaba inuu ku bilaabayo magaca reerkiisa haddaanu nahay reer hebel sidaa iyo sidaa iyo sidaa ugu dambayn dhalinyarada waxaan leeyahay horta saddexdaa xisbiya tartamay horta saddexdaa murashaxa tartamay horta kii guulaystaaba waa murashax madaxweyne kii guulaystaaba waa madaxweyne ma jiro haddii murashaxaagu haro wax xumaanayaa ma jiro haddii murashaxaaga laga guulaystana wax xumaanayaa ma jiro labadaba noloshu way jirtay wayna jiraysaa waana sii soconaysaa haddaba innaga dhalinyar ahaan waxaynala gudboon inaynu iska dayno wixii caadifada wixii ma garanaysaa inaan laynagu guurin oo aan laynagu xamaalan oo aan laynagu shaqaysanin haddaba innaga dhalinyar ahaan waxaynala gudboon inaynu horta waxaan danaheena ka raacano waxaani adigana kuu dan maaha anigana ii dan maaha siyaasi dantiisa doonaya ayuunba adiga kaa dhiganaya jaranjaradii ugu gaari lahaa kursiga tusaale ahaan
marka uu maanta ku leeyahay codkaaga isii xabadda isku dhig xaq dastuuriya kuu siinaya inaad soo baxdo inaad mudaharaado dee xaqa kaa maqan muxuu yahay kursigii oo reer waaba la fadhiyaa haddiiba beri kala guulaystana isagunbaa fadhiisanaya adiga laakiin maanta waxa kaa maqan ee aad u soo baxayso dee waxba kama jiraan haddii aad isaga dooratana beri waxaa xilka soo fadhiisanaya uun murashaxiintii shalay kan joogay uunbaa maantana kan jooga siyaasigii shalay ninkan kale ka garab hadlayay uunbaa maantana mucaaradka ka garab hadlaya kii shalay muxaafidka ahaa uunbaa maantana mucaarida wax alle wax isbedelay ma jiraan markaa nin walba danuun buu leeyahay ninkaa siyaasigaa dantiisa raacanaya haddaynu dhallinyaro nahay yaynaan ku lumin oo nin walba dantaada raaco kii la doortana waa la doorta maanta sanduuqaa la gaadho haddaan waxba la dooranina uu kani fadhiyana wax kulli isbedelaya ma jiraan ilaa inta aynu ka baxayno qabyaaladda aynu wax ku dooranayno ilaa uu siyaasigu barnaamij cad ina soo hordhigo oo uu yidhaahdo waxaan iyo waxaan iyo waxaan baan qabanayaa aniga waxaase ha laygu doorto ha layguma xisaabtano guud ahaan intaasaynu soo gabagabaynaynaa waad ku mahadsan tihiin daawashadiina